sheekh aan ku marna su'aasha ugu horeysa qofkii soo weydiiyay waxa uu leeyahay marka hore sheekh aad baan u salaamayaa waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo meerashada dumarka ay ka meeranayaan galmada timaha madaxa miyaa la raacinayaa mise gacanta qoyin ayaa la dul marinayaa bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ma bacd dumarku markay gabadhu ay janaabada ka qabaysanayso ama ha noqoto xiriir gogoleed ama ha noqoto biyihii shahwada si kale u yimid jirkoo dhan way dhaqaysaa jirkoo dhanna biyahay wada gaarsiinaysaa gacan inta la qooyo la kormariyo ama la masaxaya ay ma jirto laakiin madaxeeda iyo timaheedu haddii ay daban yihiin waajib kuma aha inay furfurto oo biyuhu inta ay ka gaaraan korka unbay kaga shubaysaa madaxa laakiin furfuritaanku qasab maaha nabigana calayhi salaatu wasalaam marka ay weydiisay ummu salama markaan janaabada ka qabaysanayo madaxayga ma furfurayaa wuxuu ku yidhi maya sidaas darteed biyaha inay jirka wada gaarsiiso tani madaxa ku shubta wey keliya waxaan qasab ku ahayn inay madaxu hadduu daban yahay ama timuhu daban yihiin ay furfurta qasabku ma aha intaa daahirkee muuqatee biyuhu ay ka gaadhaan ayaa ku fillaanaysa wallahu aclam